بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن دمان داودياشيدا قيمها بدن ee ku xiran channelka Bilkhayr Axmed meel walba daafaha caalamka ka joogtaan. galab wanaagsan ayaan hawada idin kala leenahay meel walba joogtaan. inta aan galabtoo wahayna waxaan leenahay waqti kasto idin tahay oo wanaagsan. waa aniga iyo xaajiyadii soo dhawaada saaxiibayaal meel walba joogtaan. haddaad hore noola joogto waad ku mahadsantahay la joogitaankaaga. dabcan haddii aad naga cusub tahayna fadlan channelka subscribe noo saar, muuqaalka la garee u sheer garaa asxaabtaada, ku xidhno oo gambaleelka furo si muuqaal walba oo halkan aan soo gelinaa uu kuu soo gaadho. mahadsanidin mar kale soo dhawaada bilkhayr. يوسف هذا ما سنت أصحابته وحنا قلب وناكسن مدة كلا مقنين وحنا كلا مقنين وكلا ورقة دونا دولا إدمو سودو هذا وعنيدين حيسمي سيدا دينكم نوجو حيستين وعاد نو تبتينا دينكم إدين تبينا قلب وناكسن. قلب وناكسن يعني مركز دلنا إن هاي طبعا مدوين كودن بيجي إن وينو كلا مشغولي رنتي مشغولة بدل مسكتي درتيد إن حاجيد waxaan usnayd runtii alxamdulillah imika way roon tahay oo aad buu fiican tahay. dabcan waxaan jeclaysanay maadaama dad Soomaaliyeed lagu xiran yihiin oo inta badan dadka qaar intii riwaayadaha ku xidhnayd ama riwaayad saddexaas la ku xidhnayd ay aad riwaayad u tabeen ama muuqaaladii caadiga ahaa ee halkeedii soo galin jirnay oo runtii iyadana aad naga weydeen in haddii ay idinka dileeyahay aanu idin la wadaagno maadaama dadku wax badan ay runtii isweydiinayaan ama idinku baad u baahnaydeen runtii muuqaaladii aad ku xidhnaydeen halkan aan idin soo galin jirnay. ilaahay xamdigii bilkhayr marka aad bay u fiican tahay. dabcan waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo markii aan bartayda Facebook soo galiyay qoraalkii aan runtii bilkhayr ku sheegay inay xanuunsan tahay oo runtii xaaladeedu maalinta aad u cuslayd. dad badan oo Soomaaliyeed baa u soo duceeyay, waa maasantii baan leenahay dadkaas. ilaahayna ducadii bilkhayr uu aqbalay. iminkana way roontaa alxamdulillah inkastoo xaaladeedu ay runtii ay aad u darnayd waqtigii xanuunka ku dhacay. marka waxaan leenahay guuleysta xaajiyadii waa tan hadda waa roon tahay maasha Allah. shaydaan baan xanuunsan qofka bini'aadanka waa muhiim inuu xanuusto run ahaantii dembiga qofka kaga yaraada. shaydaan baa bukoon baa hore loo yidhi. bilkhayrna runtii alxamdulillah hadda aad bay u fiican tahay. wixii ay soo martaba imanka waa taacaa maanteeda hor fadhida jeclaysatay inay dadkii Soomaaliyeed la hadasho. waana idinka mahadcelinayaa kun iyo kow jeer dadkii aanu saaxiibada Facebooka ku ahayn iyo dabcan dadkii ay bilkhayr channelkeeda ku xirnaay asxaabta laaha iyo dadkii Soomaaliyeed anagana jeclaa runtii qaarna ay telefoonada caadiga ay gala soo hadleen intii bilkhayr ay isbitaalka ku jirtay qaarna runtii qoraaladii la soo wadaageen. dabcan Facebook-aygan ku soo qoro idinmaan wada jawaabi kareynin maadaama dadka aad u tira badnaayeen, laakiin waxaan jeclaysanaa maanta inaan halkan idinka mahadceliyo. Allah jazaakumullahu khayr. alxamdulillah rabbil caalamiin. ilaahay ducadiina bilkhayr waa aqbalay. bilkhayr ay soo dhawow Soomaaliyeed asxaabtaada dadka ku jecel dadka ku soo duceeyay dadkii runtii maadaama telefoonkaaga adigu aan ku hadli kareynin anigu aan la hadlay inta waa maxaad leedahay soo dhaw. Yusuf هذا ما سنت أصحابته وحنا لها أرتورع حنونك يا عافماتك واسقرب صعدان الحمد لله وان حنون صنينا حنونك نجيريا كده بيسو وفي مالنا ليه هاي لكن شيطان كان حنون صنين وحيرو حنونها قبطي ونقص كايجو يردقي xanuuno kale oo iska dareemay jira laakiin naqaskaas ay ugu weynaayo isbitaalka oo tigay alxamdulillah muddo waa soo caafimaaday oo xawaay xanuuno waa la iga sheegay laakiin 6 bari oo kala maqneen waxaan dareemay isbuucina kala maqneen isbuucaas xoogaa xaaladeeda la baxnaaninay laakiin alxamdulillah hadda waa fiicanahay sidoo hore waa ka wanaagsanahay aniga in soo fadhiisto jeclaystay dadkayga inaan hor fadhiisto maadaama aan ay ku tabayaan dadku haddana xoogaa xanuun igu maqleen أنا وافي عنها هذا شيطان كان حنون صنين إنكستو ولي حوجا ورير يجرون مركح تذكر سفيرنا يفسكلة تعناي لكن الحمد لله هذا وافي عنها أنت يسد عيسى محله تانكيو إلهي خير إيو ونجها إذا كسيو دعدينا إلهي وأي أقبلي أنت يعني أوجينا وحنا يددي أوجينا لهذين إذا كانوا يدعي لهذين تانكيو لما وحنا يومد الصومالي دمنا البيجو كان هذا ما سنتين waxaa jiro maalmaha xurriyada oo lagu jiro Yuusuf oo aanan ka qayb qaadan maadaama aan iska xanuunsan dadkina waxaan leenahay hambalyo sanadkan sanadkiisa ilaahay sidaan shirka qurux badan Allah nagu gaarsiiyo insha Allah oo isku soo laabanay haduu ilaahay idmo inkastoo xogaa wali aanan aniga si fiican aan dareemaynin laakiin aan soo yaro baxnaano dareemayo laakiin
shaqadeena dib ay noogu bilaaban doontaa إن شاء الله بإذن الله inkastoo yusufu social media dadku say u isticmaalaan ani adigu aanan u isticmaalin هذه هذا الرن marka qaar waxaa israada dadku say u isticmaalaan maad u isticmaashi والله رنتي دوان كدونا هاي إن بدن ورنتي سيدي نوع كلا أو سوشيال ميديا استعمال هذا نوع كدونا إنه هو واحد دعي كرتا تدك عنك قف كيس بتاعك مركل الدقي مركل السيس شدو مركل إنه سرير تشيل neel bujo kamerada wataa waxaa laga yaabaa وصوبت تدك social media beenta ka sheega ay dadka uga faa'iideystaan qof baad isagoo la sii wado oo ambalaas lagu cararay isbitaalkii la geeyay oxygen lagu xiray horta ilaahay hadii la duulay maalintii waxay aalan qarcan هذه هذا تحققنا قار بول هذا لا يود بالغير ودمتي أنا جاء نقص كم مركل يقول لي لا وطبتها موقتي مركا طبعا وكدوا الناس سيد تدخل لكن حياة تدخل حتى تيك توك يلا لا تيك توك ولا بيستو مقالة هو هذا تيك توك بس يصدقون أنا نمرق قروا عليا مرنا وحسنا وتصيص حنا نصبيسا وتيك توك بنانك موصل بسته ميا طبعا بالخير مركا عاد بلادن تهي وفرسو قف والبا oo Soomaaliyeed haduu firaaq haysto waxyaalo badan uu sameyn karaa هذا فراق أنا سمعنا يجري لكن السوشيال ميديا والاستعمال runtii يعني waxa jira mataqaana qofka TikTok intuu waqti geliyo magaalada waadiye soo duubayay fursad kale haduu haysto haduu shaqo kale hayo oo ku mashquulayo ama guri joogo ama ka shaqeynayo ama waalid hayo ama arrin kale ka shaqeysanayo ama shaqo caadi ah ka shaqeeyo fursad ma heli karo inuu TikTok intuu suuqa u tago soo duubto waxa laga yaabaa goobtiisa shaqada dad wixii arrimihiisa kale ka shaqeeyay isagoo jooga inuu TikTok iska duubto sababtoo marka shaqada ka yimaadaan gurigeyga ku tuwan karaa TikTok haddana ku duubtaa laakiin tan la bistina beerta nabada aado waa dalaan weey yani waxa hawl kale oo mashquul kala jirin waa soo kacay waxbaan cunay wax kale markaan qaban waay waan beerta nabada la bistaan TikTok soo duub laakiin haddaan garanay waxaan qabto ama dad garan weyd waxaad qabato marna beerta nabada la bisan leh marna waa sameeyaa dalaan weey marna waa sameeyaa ma insha Allah ilaahay kuma kas in asxaabay waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin xanuunkuna waa waxyaabaha lagu xasuusto aliina abuuray oo adoonku u nahay markaad xanuunsatid waxaad xasuusanaysaa inay geeri ka dambayso waxaad xasuusanaysaa in ilaahayga naftan galiya haddana uu qaadayo ma fahamtay cabsi badan ku galayso sideedo anoo dhimanaysid ma runtii qofku markuu xanuun saayid qabto waa qasab marka naqaska inta ugu dhagay aan nafsan waayay indhihi kor iyo aadan waxaan isdhahay naftu waa ku deynaysaa waa runtii bil khayr xanuunka ma dhaaf inaad xanuunsato wax badan runtii oo faa'iido ah ku jira aad iyo aad sababtoo ah koow ilaahay baad xasuusanaysaa koow number 1 labo waxa laga yaabaa inaad dambi badan gasho dambiga ilaahay uu kaaga kaaga qandadu waa labada arrimood waa laga helaa faa'iido ah oo aad u faa'iido badan waliba marka waa muhiim qofku markuu xanuusto mar walba talabaad markaad isbitaal tagto xanuunka adiga ku haya waxaad arkaysaa asigoo kaaba ayde uu kaaba ah qolaalka daran baad arkaysaa mar allaala adigoo soo daray marka tagtay isbitaalka adigoo soo serious caadi ana qanay sababtoo ah ka xumay ma jirto kaasi rafaadsan waxaad arkaysaa mid ilaahay baan ku dhaartay adigu aad ka cayso wada doctor gurigeyga waan iska noqonayaa waan caafimaad qaba ayaad arkaysaa marka dabcan dadka waa muhiim waa la booqdaa meelaha qabriyada meelaha xabaalaha dadka sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam meelaha dadka xanuunsanaya oo soo eega waxa dareemaysaa caafimaadka haysato ani waxaan dhihi lahaa dadkayga maadaama waliba dhalinyarada caafimaadka yaan lagu tashan ma lagu tashan karaa xadiis nabigaana wuxuu yahay Yusuf caafimaadkaaga jiradaada u qaado Abdullah ibn Umar warnaa caafimaadkaaga jiro u qaado jiradaadana geeri u qaado صح ما فهمتي markaad xanuunsatid haysniin waa kici doontaa waxa laga yaabaa inaad ku dhimatid taad ku dhimatid macnaha marka saas marka u qaadanaysid waxa waaye in xeetay inaad wax sii samaystid markaad caafimaad qabtid inaad jiran tahay iska u qaado si aadan ugu dhaqmin qof in kibraani oo kaleeto sababtoo caafimaad darra imaanayso caafimaad darna waxa ku xigto in geeriya ku imaanayso marka waxaan leeyahay dhalinyarada walaalayaalow naftu waa hawo hawaduna wax jira ma ahan maanta hawadan hadan aan neeftaas kursi aadayso hoos aadayso wax yar lagu celiyo wallahi halisa maqanaysa marka adduunyadan waa ka tageynaa aan iswaanino aan ilaahay xasuusano nolosha social media nolosha adduunyada la dheeraanin waxa waaye lacib iyo lahwi waaye yaanan ku fogaanin insha Allah meel aan ahayn u soconaa tanina waa daarul hayati in amal daarti lagu amal falay daarul jisaa oo socna wax aad sameeysato la lagu jiseeyaa
عادي ما فهمتي alla dadaalo dadaala dhinaca kale waxaan runtii aan waxaan baryaynaa dadka Soomaaliyeed meel walba joogaan maadaama toddobaadka xorriyadda oo maanta bilow ahaa xalay ahayd 16kii maadaama anaga la soo aanan runtii anagu kala qayb qaadanin laakiin halkan aan kala wadaagaynaa guud ahaan dadka waliba Soomaaliland ku nool maadaama maalintan ay ahayd maalintii Soomaaliland ay ka qaadatay isticmaalka Ingiriiska أنا حلا هاي دمان أمد الصومالية Somaliland لكن وحي علشان Somaliland وقت هاي حرية ما مش جي Somali اللي جتاجي أما عالم كصوماليا أما حرية ما قالتي Somaliland نقوليسي ما دام Somali ما ننتهي تمام تقوليسو حلا دمان أمد الصومالية ميل وقوي يكفر إلا يحياتي جارسة إلا جيج إلا أنت كده حسوا ميل والصومالي أفك Somali لوجا هلا hambalyan leenahay ilaahay sanadkan sanadkiisana bashbashii barwaaqo dadkeena iyo dalkeena oo nabad ah Allah inuu gaarsiiyo aan isku duceyno wanaagana aan isfarno insha Allah idanka ilaahay dabcan waa maasantiin muuqaalkeena kooban waxaan idin kula wadaagnay caafimaadka bil khayr alxamdulillaah rabbil caalamiin waan ilaahay baan ku mahadcelinaynaa ilaahay baa ku mahadsan idinkana waxaan jeclaysanaynaa inaan idin la wadaagno waa maasantihiin boqolkiiba boqol waa idin mahadcelinaynaa طبعا dadka Soomaaliyeed ee bilkhayr soo duceeyay kuwa hadda soo duceyn doona imikana bilkhayr duca kale u baahan tahay insha Allah oo wali caafimaadkeedu uu soo reynayaa sidii hore way ka fiican tahay ducada sii wada idanka Ilaahay insha Allah billahi alkareem waxaan rajaynaynaa in muuqaaladii sidii u wadaagi jirnay inaynu wadaagno aniga iyo bilkhayr runtii anagoo ku faraxsan maanta inaan halkan muuqaalkeedu kala wadaagno waxaan jeclaysanaynaa inaanu kaga tagno maadaama maalmo xorriyada tahay Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba ha noolaadaan. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.